kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkan oo aan idinkugu soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah beesha dhulbahante oo dagaal uga saaray ciidamada Somaliland magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. xiisada ka taagan magaalada Laascaanood iyo khasaaraha guud ee ka dhashay dagaaladii ugu dambeeyay ciidamada iyo shacabka careysan ku dhaxmaray magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool ayaan idin soo gudbin doonaa. guddigii dhawaan uu magacaabay gudoomiye Aadan Madoobe inay ka soo warbixiyaan xiisadii Laascaanood oo xubno kamida ay iscazileen iyo baarlamaanka oo isku khilaafsan qaabka loo wajahayo xiisada magaalada Laascaanood. qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan. daawaday haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino. aynu ku bilownay daawadayaal wararka naga soo gaarayo gobolka Sool ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada Somaliland iyo Maleeshiya deegaanka oo ka soo horjoodo maamulka Hargeysa. dagaalka oo ahaa mid culus ayaa sababay khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac iyo sidoo kale dad rayida. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada Somaliland ay dib uga baxeen magaalada Laascaanood waxaana saaka gudaha u galay maleeshiyaadka deegaanka oo ka soo horjoodo joogitaanka ciidamada Somaliland ee ka amar qaato Muuse Biixi. xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana labada dhinac weli dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan magaalada oo ku taala waqooyiga Soomaaliya. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada deegaanka ee magaalada ay la wareegeen dibna ay u fasaxeen adeegyadii isgaarsiinta gaar ahaan internetka oo hore ay u xireen ciidamada Somaliland. Laascaanood ayaa waxaa maalmahan ka jirtay xaalad adag waxaana hakad galay dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada sida ganacsiga, waxbarashada, isku socodka dadweynaha. rabshadahan oo galay toddobaadkii labaad ayaa ka dhashay dil dhawaan magaalada lagu geystay Cabdilfataax Cabdulaahi Cabdi Xadraawi loo yaqaanay oo ka mid ahaa dhalinyarada deegaanka ee siyaasadda aad uga muuqday xubinna ka ahaa xisbiga mucaaradka Somaliland ee wadani. waxaa rabshaduhu ay ka sii dareen markii ciidamada Somaliland rasaas ay u adeegsadeen dadka dibadbaxa ka dhigayay magaalada Laascaanood ee ka soo horjooday dilalka xaqdarrada taasi oo dhalisay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac. si kastaba xaaladda ayaa u muuqata inay faraha ka sii baxayso maadaama aan weli xal loo helin rabshadaha socdo waxaana weli shacabka ay sii wadaan dibadbaxyada ay dhigayaan halka ciidamaduna ay adeegsanayaan awoodooda iyo weliba sidoo kale hubkooda taasi oo sii kordhisay khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee wax ku noqday rabshadaha ka soconayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. reer Laascaanood ayaa waxa ay ka dhiidhinayaan inay ka baxaan Somaliland inteeda kale oo ay ka go'aan iyadoo aan si dhab loo ogeyn go'aankooda inuu yahay inay ku biiraan Puntland ama dawladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi si guud uga arrimiso magaalada oo heegan waa inay dalkooda u dhintaan oo dagaalamaan. waxaan doonaynaa inaan cadawga wadan ku soo duulay aan iska celino gacanta saarno. dadka shacabka magaalada dhammaan hubkooda way la soo baxeen maanta diyaar waxa u yihiin inay dhulkooda u dhintaan. war diyaar mooti waxaan doonaynaa dadka internetka loo furo internetka khasab lagu furo aan doonaynaa shirkadu ha furto haddii kale shirkadu furi weydo bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan leeyahay haddii shirkadu internetka la sii dayn waayo mas-uuliyadda Somaliland baa qaadaysa shirkaduna way gubanaysaa. dhaqaaqi mayno inta la furayo dhaqaaqi mayno. waxaan leenahay haddaad dantiina doonaysaan fura hadeer shaqo. arrintan ayaa sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa iyadoo guddi dhawaan uu u magacaabay inay ka soo tala bixiyaan xiisadda iyo rabshadaha ka soconayo magaalada Laascaanood. gudoomiye Aadan Madoobe ay iska cazileen xubinnimada guddigaasi. guddiga uu talaadadii gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe u magacaabay xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood inay ka soo warbixiyaan ayaa gebi ahaanba iska cazilay xubinnimadii guddigaasi.
xildhibaanadan oo kala ah Cabdulaahi Abubakar Xaaji, Cabdulaahi Carab iyo Cabdulaahi Cabdi Maxamed oo geelqaad loo yaqaano ayaa waxa si wada jir ah warqadda ka bixidda guddigaasi ay ula socodsiiyeen gudoomiye Aadan Madoobe. waxa ay ku yiraahdeen warqadda annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan oo ka mid ah guddiga gaarka ee gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka uu magacaabay inay ka soo warbixiyaan xaaladda magaalada Laascaanood. markii aanu tixgelinay dareenka xildhibaanada beelaha direed waxaanu go'aansanay in aanu iska casilno ka mid ahaanshaha guddiga ayay ku yiraahdeen qoraalkooda. sidoo kale waxay sheegeen inay ka xun yihiin rabshadaha ka taagan Laascaanood iyagoo tacsi u diray dadkii ku geeriyooday magaaladaasi halka inta dhaawacantayna alla ay uga baryeen inuu siiyo caafimaad. waxaa baaq nabadeed ay u direen maamulka Somaliland iyo shacabka Laascaanood in nabadda ay ka shaqeeyaan wixii farqi ah ee jirana wada hadal lagu dhameeyo. iscasilaadan ayaa imanaysaa saacado kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka soo jeedo Somaliland ay ka hor yimaadeen guddiga uu magacaabay Aadan Madoobe. guddiga loo magacaabay Laascaanood ayaa waxaa lagu talagalay inuu warbixin ka soo diyaariyo rabshadaha ka soconayo magaalada ka tirsan gobolka Sool iyadoo halkaasi ciidanka Somaliland ay ku dileen 20 qof oo shacab ah. xildhibaanada ka hor yimid guddigaasi ayaa sababta ay ku diidan yihiin waxa ay ku sheegeen in qaabka loo maray magacaabista aanay ahayn qaab sax ah iyo sidoo kale in xubnaha la magacaabay qaarkood aanay xog badan ka haynin xaaladda Laascaanood sida ay hadalka u dhigeen. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyadii shalayto ka dhacay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyadoo dadka wax ku noqday ee ku geeriyooday qaraxyadaasi ay ka mid ahaayeen 10 qof oo isku qoys ahaa oo ku geeriyooday qaraxyadii Al-Shabaab ay ku weerareen magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. arrintaasi ayaa waxaa ka waramay Jaamac Maxamed Cali oo hooyadiis iyo aabihiis ay ku jireen dadka lagu laayay gurigooda. Jaamac waxa uu sheegay in markii qaraxyada ay dhacayeen uu ku sugnaa guri kale oo u dhow guriga ay ku geeriyoodeen 10 qof ee waalidka iyo walaalaha u ahaa, waxaana dhacdadan uu ku tilmaamay inay tahay musiibo ah. sababta loo bartilmaameedsaday qoyskiisa ayaa la weydiiyey Jaamac, waxaana uu sheegay in waxa ka dhacay magaalada ay musiibo wada ahayd isla markaasina raggii geystay aysan lahayn bartilmaameed gaara. waxa uu sheegay in gurigan oo ku yaalo bartamaha magaalada oo u dhow saldhigga booliiska degmada Maxaas hadda haddii aad aragto goobtii waxaad isleedahay ayuu yiri meesha weligeed guri lagama dhisin sida qaraxa uu burburiyey. dhinaca kale gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Mu'min Maxamed Xalane ayaa ka hadlay arrinta reerkaasi u wada geeriyooday qaraxa, waxaana uu sheegay in gurigiisa iyo kan reerka ku wada dhamaaday qaraxaasi ay isku dhaganaayeen balse isaga uu ka badbaaday qaraxa. gudoomiyaha ayaa intaasi ku sii daray in 29 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyadaasi halka ugu yaraan 50 kalena ay ku dhaawacmeen. 42 qof oo ka mid ahaa dadkaasi waxaa dhaawacooda degdeg loogu qaaday magaalada Muqdisho kadib markii dawladda Soomaaliya ay diyaarad u dirtay. ugu dambeyntiina daawadayaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa shir gudoomiyay shir looga hadlayay xaaladda amniga dalka. shirkaasi oo sidoo kale qayb ka ahayd cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya muddada dheer sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga gudaha ayaa ka warbixiyay howlgallada dib u xoreynta oo ilaa iyo hadda guulo waaweyn laga gaaray gaar ahaan gobollada Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. howlgallada lagu ciribtirayo Al-Shabaab ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 2,000 oo maleeshiyo khawaariij ah 4 bilood ee ugu dambeysay sida lagu sheegay warbixinta. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa Xuseen xukuumaddiisa ay ka go'an tahay ciribtirka Al-Shabaab oo hadda waqtigooda uu sheegay inuu gabaabsi yahay. waxa uu sidoo kale tilmaamay in xukuumadda dadaal ay gelin doonto sidii ay uga guulaysan lahayd
in dalkeena laga dulqaado cunaqabataynta hubka. shirka ayaa intii uu socday waxaa lagu gorfeeyey hindisa sharciyeedka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada iyo hindisa sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. ugu dambeyntii waxaa lagu soo joodiyey shirkan dhisitaanka guddi ka kooban 2 heer oo kala ah guddi fulin iyo guddi farsamo oo ka shaqayn doono fulinta bartilmaameedyada qorshaysan ee dawladda ay ku xaqiijinayso in dalka si dhammaystiran looga dulqaado cunaqabataynta hubka, taasi oo lagu fulinayo muddo sanad gudihiisa ah. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.